digasi ina miya gabdhawa آمين يا ربي يا كيسة دعيتنا نقطع عافماد بعد حل حنوز لما أنت maahan xilli la xanuunsada ma joogtid macaan anigu darsaday haddaa timid wandhawe markale dib ha iga tegi sababta uu ninkani hargeysa ageysiyo isagoo arooskiisa muqdisho ka dhacayo wax kala maaha waa aad ka carar markii aad aroos samaynayso runtii Soomaalida waxay tiraahdaa hadii aad rabtid in lagu caayana aroos hadii aad rabtid in lagu amaanana dhimo marka maalinta arooskaaga hadii ama xafladda meherkaaga ay soo taagtid meesha aad dhex boodboodisidii orgi riyo ku dhex jira hadaad boodboodid waxaad ogaataa qof kasta uu ku dhaamaya السلام عليكم صاحب ملك سو joogtaan si kasto muuqaalkayga idin soo gaariyaba halka diga daawanaysaan waa channelka Shaaca Sheekay laakiin Shaaca Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka daleynta bulshada oo aad ku wahay damban magaleeyo una filanay mirta gurel ma xadada kalkaaya madaman galadagay waa taa saaxiib intaan barnaamijka ugu galin fadlan subscribe saar channelkayga sidoo kale la dhac muuqaalkan suu gaar saaxiibada waa taa magaalada muqdisho maanta waxa ay qaabishay mid kamid ah mucaashiqiinta ugu saameynta badan ayaan oran karnaa baraha bulshada arooskii ugu weynaay ama xafladii meherkii ugu weynayd ayaa magaalada muqdisho ka qabsoontay arintani waxa imaanaysaa xilli dadka social media ku jira ama dhalinyarta media ku jirto dhan ay inta badan aaminsanaayeen inaysan xafladan ama arooskan kale u dhici karin sababtuna waxay tahay kadib markii meediyaha ay ku soo badatay waxa la yiraahdo prank labadii isjecel inta badan waxa loo marinaya inay prank tahay ee rabina kubada isla baastaan sidoo kale kuwii hadiida isgudoonsiye qaaliya waxa loo haystaa inay prank tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa beentaada hore runtaada dambe ay u baasbaxdaa macnaha dadka media ku jira ee social media ku jira ee caanka ah ayaa inta badan waxay ahaayeenba kuwo inta badan baraha bulshada ku soo bandhiga prank ta oo aan xitaa la rumaysan karin hadii ay arin serious ama xaalad sax soo gudbiyaan hadaba gabadhan iyo wiilkan waxa lagu kala magacaabaa boqorada steelka iyo hakul wanaamisanahay inay dad badan garanayaan haddana ay u baahneen in kala fahmaan laakiin waxay ahaayeen lamaanayaasha social media gaar ahaan barta TikTok ugu saameynta badan waqtiyada ugu dambeeyay waxay ahaayeen laba qofood oo dhalinyaro ah oo dadku aad isku la jeclaayeen inay mar'uun ay noqoto maalintooda sida maanta oo kale maanta ay tahay 6da bisha oo badantay inay tahay maalin barakaysan maadaama xitaa la arkay ninkii raagay iyo qaaladan oo saag fadhiya oo xaaladooda si kala tahay intaan arimaha ogolinba bal haakul iyo boqorada steelka sidee bay muqdisho u qaabishay muuqaalkan wada daawan هيكل محمد موسى وأديك صور كيشي أو عن كل كاحية مالية أبشر محمد حسن ومهر كيدا أويا بقول قران ودهب بنت مرأة وسنغافوري أعبها أويا كيشي إن كل كاحية هيكل محمد موسى هيكل أديك كوكيل نكاحاس مهكاس موضوع بشر والله النكاح عاصمة هيك صنوع هيكل محمد موسى وأديك صور كيشي وأن كل كاحية ماريا أبشر محمد حسن وأعبها صور كيشي إن كل كاحية هيكل مهر كذا وبقول قران وذهب وفي تقراء سنغافور أن كل يوم كل كاحية هيكل مهر كاس نكاحاس موضوع ما شاء الله تبارك الله waxaan leeyahay wiil iyo caano gabar iyo caano ahaan noqonina kuwii iyagoo boy jecelada beenta na soo bandhigay ee hadana boorsooyinkoodii kala qaatay sidoo kale waxaan arkay boqorada steelka oo leh xanuunsanahay waxaan leeyahay caafimaadka iyo sidoo kale xanuunka Allah haye Allah ku caafiyo آمين يا ربي يا كيسة دعيتنا نقطع عافماد بعد حل حنوز لما beenta maahan xilli la xanuunsado ma joogtid xaashawd ma joogtid baan ku iri xilli la xanuunsado xilli aan kale xitaa xanuunsan ma laga yeelay xitaa xanuunsanahay laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay ku caafiyo آمين يا ربي dhalintan waxa ay muujiyeen talaabo ay ku daysan karaan dhalinta kale ee social media ku soo bandhiga jacayladooda waxaan leeyahay maadaama aad dad social media ku jiro ee la garanayo wajiyadooda marka ay timaado maalintiina oo kale oo maleynaya ku badan been u daldalayaan jida meesha marka ay timaado maalintiina sida dadkan camal waxaad sameysaan
maalinta arooskaaga faaraxow ha isku soo istaagin meesha fagaaraha ayaada ku fashilmin oo aadan eed lagaala daalin sida haykal oo kale hargeysa inta tagtid iska hees adoo arooskaaga muqdisho ka dhacay inta hargeysa tagtid iska hees dareema intaad maqnay darsaday macaan anigoo darsaday haddaa timid wandhawe markale dib ha iiga tegi sababta ma garanaysaan sababta oo ninkani hargeysa aga heesiyo isagoo arooskiisa muqdisho ka dhacayo wax kala maaha waa aadka carar markii aad aroos samaynayso runtii soomaalida waxaa tirahdaa haddii aad rabtid in lagu caayana aroos haddii aad rabtid in lagu ammaanana dhimo marka maalinta arooskaaga haddii ama xafladda meherkaaga ay soo taagtid oo meesha aad dhex boodboodid sidii orgi riyo ku dhex jira haddaad boodboodid waxaad ogaataa qof kasta wuu ku dhaamaya wiil ama gabar mid kasta wuxuu ku leedahay arooskaaga qof kastoo lagu xumeeyo aduu sharafti karaama kaa qaada laakiin haddii aad ka maqnaatid qof ilaahay abuurtay oo ku eedaha ma jirto marka sida ninkaa oo kale ha loo gembiyo maalinta xafladda meherkii waxa ay dhacayso haddii aad eed u dulqaadan kartidna joog haddii kalena ka dhumo meelaha kale wadamahaas kale iska aadba meesha arooskaagu magaalada uu ka dhacayo moogiya magaalo kale aadba si aan marada lagaaga tuurin tirin nabarada waqtiga iyadana u sheekay marka ninka odaga waxaa waaye go-aanka uu qaatay geesinimada leh aan ku taageeraya inuu muqdisho isaga dhunto ee hargeysa u dhunto isagoo arooskiisii uu muqdisho ka dhacay 2 beri kadib wuxuu soo laabanaya asagoo sharaf loo shaatigiisu caadiya laandheeranimo kadibna hawshiisii oo shaqadii oo hawar kale marka waxaad leeyahay ku sifooba shaqadiina xambari sidoo kale 6 bisha May waxaan u aqoonsaday maalin qayreysan maadaama aan xalayto ilaa maanta aan arkay leefaf la soo jarjaray la wado qaaliladan iyo raaga cabdi oo aan anigan hadda in la hadlayo xitaa arintooda ku foodsanahay kuwa isaaq fadhiyo aad isugu faraxsan horta waxaad leeyahay ma sha Allah isku farxa noqda kuwii iyagoo faraxsan mar walba ka soo muuqdo meelihii aan uga baranay kuwa ka soo muuqdo noqda laakiin waxa la yaabaa qaali waxa arkay aad u qala dhaaminayso oo inta badan marka qaar dadka dacwoonayso dheeysa iska kiidaaya maxaad iga rabtiin dad badan ay soo wacay isla markii wax dhahay qaali branking muxuu qaar wax dhahay ma sha Allah isku laabtay hambalyo Soomaaliya aad wax u hubsada kuwa dhahayan waa isku laabatay dib uma arko laakiin kuwa branking waay wuu dhahay war waxaas ceeb waay weligay intaan social media ama dad media ku jiray baraha bulshada ayagoo jecel soo bandhiga inta aragno boorsooyinkooda kala qaatay inta arkay nolosheeda waa dadkii ugu horeeyay oo iyagoo isku faraxsan isdhahay haddana isma qabno waan kala tagna marka arintaa waxay keentay tuhun ah dadkani ma baraanki bay ku sameynayaan baa dadkii aamineen marka baa qaali inta la qabtay baa lafaha loo qorxay jikufa jikara laga dhigay xaleeyaha dadka qaali inta badan jafaya waa ka naxay waa gabar iska masaakiin ah inkii hadday baraanki sameynayso ma aaminsan in sidaa loo galo laakiin anu ahaan waxaan dhihi lahaa Soomaalidu waxa ay yaqaanin itusoo itaabsi wax ah wixii ay horay ama dhaqan Soomaaliyeed ku yaqaaneen hadday ka waayaana waa xaqiiqo inay kabaha ka daba gashanayaan aad oo soo daashado muuqaalka shacabka iyo muuqaalka bixisale